maamulka magaalada Wajaale iyo bulshada ku dhaqan magaalada Wajaale ee dhinaca Itoobiya dawladda deegaanka Soomaalida ayaa saakaas ku soo baxay xuska 28aad ee Hayaa Ginbood taasoo guud ahaanba maanta laga xusayay dalka Itoobiya. xuskani Hayaa Ginbood ayaa reer Wajaale waxay kaga qayb qaateen dhirbeeris ay ku sameeyeen xarumaha dawladda iyo wadooyinka dhexmara magaaladaasi. sidoo kale waxay olole nadaafadeed ku qaadeen goobaha uu qashinku yaalay. maayirka magaalada Wajaale ee dhinaca deegaanka Soomaalida injineer Mukhtaar Abiib madaxa arrimaha xisbiga ee maamulka magaalada Wajaale Master Ismaaciil iyo maareeyaasha bilicda beeraha dakhliga iyo maaliyadda iyo waliba afayeenka baarlamaanka magaalada Wajaale ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xuska Hayaa Ginbood ee ay maanta ka xuseen magaalada Wajaale. taasi marka isbedelkaasi wuxuu ku yimid waa isbedelka yimid maalintaas marka aad baan soo dhaweynayaa maanta magaalada Wajaale aniga ku hadlaya magaceeda iyo magaca shacabkeedaba waxaan leeyahay magaa nabad ku soo gaarnay xuskan 28aad ee maalinta 20ka Ginbood taasoo ku xusnay runtii wax qabad dhinaca cagaarinta iyo bilcinta magaalada dhinaca dhowr goobood iyo xawaalaha agtooda taasoo ku beernay ilaa wax ku dhow 1000 geed oo ku beernay marka waxaan leeyahay bagay nabad ku soo gaarnay waxaan leeyahay ilaahay haynu gaarsiiyo sanadkiisa inagoo caafimaad qabna horumar waarana gaarnay dhirta aynu beernayna harsan doona ama manaafacaadsan doona haddii alla ka dhigo bilicda magaaladana wax weyn ku soo kordhisay marka mar labaad iyo mar saddexaad aniga magacayga iyo magaca maamulka magaalada qashinka magaalada waxaan ka galay dhowr goobood oo muhiim ah goobi waxa weeye xagga xarunta xadhiga ama controlka sare ama keelaha sare taasoo aynu ognahay bilic foolxumada ay ku haysay iyo deegaanka ay biinaysay laftigeeda oo runtii aan isleeyahay xaggaasi wax fiican ayay maalintani u tartay gaar ahaan goobaha kale ee muhiimkii waxay ahaayeen xarunta caafimaadka iyadana dugsiga hoose dhexe iyo toga oo isaguna marka runtii aad baan ugu faraxsanahay sida bulshada magaalada Wajaale ay uga qayb qaadatay nadaafadda iyo bilcintada aad baan uga mahad celinayaa intii soo abaabushayna runtii aad baan uga mahad celinayaa aad baad mahadsantahay maanta 20 Ginbood waa sanad guuradii 28aad waxaan aad loogu xusay dhammaan dalka Itoobiya oo dhan maadaama gaar ahaan maanta magaalada Wajaale waxaan aad ugu xusnay inaan si fiican ugu soo dhaweyno xagga bilicda beerista iyo horumarka kaleba marka waxaan beernay 1500 oo geed oo meelo kala duwan ku beernay sida xarunta caafimaadka sidoo kale iyo magaalada Kooyaasheeda xagga bilicda meelo badan waan qashinada waan ka soo ururnay si fiican baan ugu barandegnay si fiican waan u hambalyeynaa Itoobiya maalintii xuska 20ka Ginbood gaar ahaan maamulka magaalada Wajaale waxaan ahay fikriyaha mutawaale ilaa xusiyada beeraha iyo xoolaha maamulka magaalada Wajaale halkan maanta ololaha ku qaadan laba isku jiray ololaha nadaafadda iyo dhirista maamulka magaalada Wajaale waxaan halkan maanta ku beernay ka xafiis ahaan iyo maamul ahaan 1500 geed oo kala duwan waxaan ku beernay xaqayaan dhakhtarka maamulka magaalada Wajaale dugsiga hoose dhexe ee magaalada Wajaale laamida street laamida ee maamulka Wajaale halka aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay maanta gaar ahaan maamulka magaalada Wajaale in maanta wax qabad u muujinay hadda kadibna sanadkii ay dhirtaasi iyo nadaafadaas ay shaqeyn doonto aad iyo aad baan u mahadcelinayaa xuska 20 Ginbood oo 28 jirsan sadarteed waxa lagu xusayaa sanadkan waxa lagu xusayaa nadaafadda beeris goobtani waa goobta keelaha ee lagu soo galay magaalada Jigjiga waad aragtaa macnaha shaqada ka socota waa nadaafadda lagu xusayo 20 Ginbood
waxaan qorshahaan qaadanay qashinka magaalada in la maareeyo maalinteeda laga faa'iideysano iyadoo aanu isticmaalayno shaqaalaha dawladda shacabka hay'adaha nabadgelyada iyo dhammaan xubnaha kabineetka magaalada Wajaale waxaan qorshahaan qaadanay in magaalada nadiifino runtii si qiimo badan ay shacabka magaalada Wajaale uga qayb qaateen magaalada maan raxiim anigoo ah afayeenka baarlamaanka ee maamulka magaalada Wajaale محمد موسى حسن waxaan maanta u hambalyeeynaa dhammaan shucuubta Itoobiya dowladda dimuqraadiga federaalka ee Itoobiya gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa maadaama ay maalinta gubooda 20keedu ahayd xilligii ay dhashay nidaamka federaalismku iyo xilligii dimuqraadiyaddu ay kaana qaaday magaalada Wajaale waxay la koobsatay xilligii ay gubood dhalatay saadaradeed maanta anaga waxaan naga go'an saadaarkaysan maanta waxaan ku xuseynay inaan dhirbeerno annagoo ku duulina qorshaha istaraatiijiyadeed ee maamulka magaalada Wajaale uu diyaariyay go'aankuna uu ahaa inaan cagaarino magaalada Wajaale waxaan isku raacnay inaanu xafladan munaasabadda ah isbeddelka horumarineed ee bulshadu ku yimid hadafka shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa ka dhashay nidaam aad u fiican oo dimuqraadiyadaysan oo xuquuqda shacabka sugay saadaradeed hadda ka hor in wax la qabto wala diiday in geed la beero lama ogolayn in shacabku si xor ah araahdooda iyo fikradooda ay u soo jeestaan ma ogolayn waxyaabo badan baa khaldamay hadda laakiin nidaamka cusub iyo isbeddelkii ka hana qaaday jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya iyo dowladda deegaanka Soomaalida waxa suura gashay maanta inay xuquuqda muwaadinku sugan tahay iska cadaadiska qabta ee dhiiga cabka ee dhargi xilligii la xoreeyay iyo maanta munaasabaddan la xusayayd halkii la hadalay waxa weeye maanta waxaan wadada ugu qaadanay Wajaalaha ama xukuumadaha waxa loo qaatay in maanta lagu xuso ilbeeris oo dhirta la beero maanta waxaan beernay ilaa 1500 oo geed meelo kala duwan oo aan ku beerno taasi oo maanta ku weynayno ama aan ku xusayno sanadguurada bood waxa leena markaa maanta horumar ballaaran iyo magaranaysa Mukhtaar Nuux Ibraahim Ariel TV magaalada Wajaale dhinaca dowladda deegaanka Soomaaliya